balbalaarka waa loo dhaartay abo saalax waa naahoy maa joogtid astur kurlibaax waxay noqotay gabadha keliya ee gaangiristarada soomaalida ee nairobi joogta tidna ma laha hawar baa tahay habarnimada maxaa u diidaysaa ilmaa dhashay 25 jirna ma tiid xalay mooha adaa ragga ku soo dalbatay adaa dishay eriga aa ka xanaaqday oo mooha aa ku dishayna waa maxay naagta live-ka mooha kaa dhexdhehaysay hawar baa tahay maxaa u raadsan wayse waxay noqotay gabadha gaangiistarada ah ee nairobi ee garaacda wiilasha waa wiilkii labaad ay ku dalbato koox ay lacag siisay oo rag ah oo garaacay maanta nairobi wallaahi muqdisho waxa waaye ma ku tagaan waxa hadal kuma tagaano nooc walba ahaada hadal kuma tagaano waxay isku dayday inay difaacdo wiilka raggii waa ka bateen telefoonkiisii waa ka qaadatay dharbaaxa loola aaday warka la xalaa gabadha kheyladii cabaadku waa maqli kartiin saas ay tahay fartuun darbaa lagu dhuftay saasay tahay maantay dagaalka ugu adag wuxuu ka dhex qarxay astar kurlibaax iyo fartuun waxta la daawo muuqaaladan hadalku meel walba ay xanuunayeen ma fahante xalay wallaahi bilaahi yaa ku dhaartay astar kurlibaax saaxiibna ma aha walaana lagama dhigan karo hawartaas qof fiicanna maaha astar waa codowga aniga mooha xalay dadkirtidna ma laha hawar baa tahay habarnimada maxaa u diidaysaa ilmaa dhashay 25 jirna ma tiid xalay mooha adaa ragga ku soo dalbatay adaa dishay eriga aa ka xanaaqday oo mooha aa ku dishayna waa maxay naagta live-ka mooha kaa dhexdhehaysay hawar baa tahay maxaa u raadsan wayse waxaa la yaabaa in hotor fartuun waa loo booteeyey waa dagaalantay waa iska dhiciday wax walbay samaysay wiilkii laakiin waa difaac weeday maanta waxay ka dhex tafan tahay astur oo laleeyahay duq aad tahay 25 sanana ma jirtid baa ila daawo muuqaalkan tidna ma laha hawar baa tahay habarnimada maxaa u diidaysaa ilmaa dhashay 25 jirna ma tiid xalay mooha adaa ragga ku soo dalbatay adaa dishay eriga aa ka xanaaqday oo mooha aa ku dishayna waa maxay naagta live-ka mooha kaa dhexdhehaysay hawar baa tahay maxaa u raadsan wayse gabar gaangiistarada ah gabadhii ugu horeeyay Soomaaliyeed ayaa ka soo ifbaxday caasimadda Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida Islii gabadha oo lagu magacaabo astar kurlibaax hota hore ani waa reebo moha inaad disho moha inaa weliba dilmaha kenya hadda dharbaxay wax yar ku fatay sidii maxamed oo kale waxaan maqdar oo kale isbitaal la siixiyo wuxuu ahaa wiil maskiin ah oo wuxuu u qoday god dheer uu ku riday laakiin marna kuma fakirin godkii asoo qoday inuu ku dhici doono shalay waxaad ku samaysay wiilkii maskiinka ahaa ee walaalka ahay waa dareemaysay maantay adiga maxaa lagugu sameeyey jabkaasoo jecliya meel ugu jawaan jaago xumaa u dhahay jabkaasoo kale jecliya meel ugu jawaan jaago xumaa u dhahay waayo shalay ayaa waxaa dishay wiil maskiin ah oo waxba kaa halaynin intaa rag u soo aawushay aad ku dalbatay adigoo iska gadaaya masaakiintan astar kurlibaaxa agteeda masaakiinay ka tahay marka adiga lagu arko maadaama adoo iyada gaangiistarad ay tahay ay ku garaacday adiga waa boqortooyo astar kurlibaax garabkaagaan taaganahay gantaalaan kuu ridaa waa kuu shirba maanta garabkaagaan taaganahay gantaalaan kuu ridaa hota mahama garaacino sharaf waa leedahay cisiga karaamo waa la rabay inaad maho garaacdo maanta wiilkii waa qanacsan yahan ku dhahay sa aan u qanacsan oo kale shalay wiilkii la garaacana wuu qanacsan yahay waayo wuxuu isdhahayay astur wax kaama qaadi karta adiga laakiin waa tusisay tibartiisa intay la eg tahay fartuun balbalaarkana waxaa leeyahay walaasheeda adigu waxaa tahay gabar walaasheena oo reer muqdisho ah ku soo laabo magaaladaada astur kurlibaax badaheeda ka bax iska dhaaf waxaa la rabaa ninkaas inay garaacdo in ka badan garaacdo waayo shalay ayuu wuxuu xumeeyey nin rag ah shalay ayuu wuxuu xumeeyey nin rag ah shalay ayuu wuxuu u garaacay nin rag ah ayada darteeda oo niman ugu dalbaday maantana asagii ku dalbatay
waxaa lahay Brejo ciyaarta waa Brejo Oncusiono non perdere Talyaaniska waxay dhahaan Oncusiono hadduu kusoo maro ha iska beerdaraynin maanta Oncusiono ninkaas soo maray maxamed wiilkii xamqada miskiinka ahaa garaacay asagana maanta la garaacay Brejo waa la kala qabaa Astor Kurli waxay tahay 25 jirka gaangistarka Nairobi ayaa waa qoonsanay waa wareey yaa ama halkaas wixii ku dhigsadanayo iyadoo okiyaalihii wato sabadar tuwaka oo shidan tahay ama ku dhijiya gaangistarada Sliway ee ragga u soo baxday mar dhow waxa ka baqaa inay garaacdo yaxbul sikri Soomaali raga liis ku soo jiro waxa ka baqaa inay hadda yaxbul sikri Soomaali ciidan ku dalbatay dhahdo soo garaaca nimankaas magaalada aan ii xoreysan tahay ana youtuber ana fanaanar ana tiktoker waxaan leeyahay Fortuney dagaalka kuma qoseeyay badan ka bax badan iska dhaaf wixii ku gaaray waxay kugu soo gaareen gardaro laakiin Astor waxa la rabaa inay ka raali galeyso maadaama aad tahay gabar reer Muqdisho ah oo liwaaxad ah oo aan rag la dilay xataa meel uga dhaqaaqaynin Fortuney adeeg badana nin la dilayo geesaha laga taagan yahay waraani garaac aabiin wasa wiilka taawanina Fortuney wallahi geesi ata aniga gacana ku taagay waa ordi lahaye faktaha u dhila qof kale oo carar lahay laakiin hadda waxa arkay inaa liwaaxad tahay balbalaar official oo salaami geesiyada taadi war muuqaalkaas ii sheegay oo like saar oo comedy ka bixiyo oo la wadaaga asxaabtiina YouTube-ka degdeg channel-na war wuu socdaa muxuu casashadii way dhaqaaqaysaa way ordaysaa hadda wuu socdaa wuu ordayaa degdegsan yahay wasaara like-ta subscribe dhadhac ku siiya sii sheegareeya la wadaaga asxaabtiina waayo waa YouTube cusub bal maanta fiiri wuxuu marayaa maantay 27 beri ayuu furan yahay kowdii bisha 27kii October la joogaa maanta wuxuu haystaa ku dhawaad 200 iyo hordho subscriber ah 500 meer saacado daawasho ah waxa intaas ku helayna sharaftii cisigii karaamada waa ummadda Soomaaliyeed I love you aadan jeclahay waxa socota oo qaabinayaa xafladii koowaad bishii koowaad oo gaaray YouTube-kayga maanta YouTube-kayga bishii koowaad waxa ugu dhimay 3 maalmood waxa rabaa inaa 3 maalmood kor u qaadaan Soomaaliyay kor u qaad oo gaarsiiya hal gaarsiiyo kunka hal gaarsiiyo 500 hal gaarsiiyo 400 hal gaarsiiyo 600 hal gaarsiiyo bal waxa 3 bari oo soo socota waxaan ka rabaa Soomaalida bal YouTube